Asalaamu calaykum daawadayaasheena qaaliga ah ee ku xiran janaalkeena Soomaali Horumarkaab aad baan idiin salaamayaa aad baad u mahadsantihiin boqoshada aad soo boqoteen janaalkeena Soomaali Horumarkaab waa aniga Maxamed Cali Geesay iyo isbuuceena xiga maanta waxaan ka hadli doonaa halkee ayaa laga yaabaa suuqa inuu gaaro maalmaha soo socda sidaad la socotiin isbuucii tegey analyse-kan ka hadlay wuxuu noqday boqolkiiba 99 sidaan ku analyze gareeyay waxaan filayaa badankiina inaad ka faa'iidaysateen haddii aan u guda galo cashirkeena maanta waxa ugu horeeya aan wada analyze garayn doono waa euro USD sidaa ula socotiin euro USD wuxuu joogaa meel aad iyo aad xasaas u ah isbuuci hore waxaan dhahay trend line-keena ayuu jebinayaa kadib wuu isu taabanayaa kadibna kor ayuu tegayaa ilaa ayuu ka gaaro take profit 2 sidaa la socotiin wuu gaaray asxaabta ka faa'iidaysatay waxaan filayaa inay bits badan ay ka aruursadeen insha allah hadda maadaama meel xasaasi ah uu joogo waxaan aad iyo aad u rajaynayaa inuu suuqani oo soo dhici doono maalmaha soo socda inuu ahaado mid soo dhici doono maalmaha soo socda inuu soo dhici doono insha allah saabaan rajaynaya insha allah inuu noqdo suuqa ilaa iyo inuu gaari doono insha allah hadda maadaama meel xasaas uu joogo waxaan fiirinaynaa sell button inaan helnaa sell button kadibna oo hoos usoo jibiyaa insha allah sida tan inuu noqdaan rajaynayaa ilaa laga gaaro maalmaha soo socda 1.936 ugu yaraan inuu meelahaas u gaaro ama xataa waxaa laga sii yaabaa inuu gaaro 1.892 insha allah saabaa aad u rajaynayaa lacagta xiga aan ka hadli doono waa Great Britain USD sidaad ula socotiin Great Britain maalmahani qalalaas aad iyo aad badan ay ku jirtaa Ingiriiska iyo waxa isku dhagan iyo dawladaha reer Yurub isagana sidaan dhahay isbuuci hore wuu jibiyey trend line-keena wuu jibiyey haddana dib ayuu usoo taabtay kadibna kor ayuu usii baxay waxaan rajaynayaa insha allah inuu noqdo inuu soo dhaco u taabto meeshuu trend line-ka u jibiyey kadibna inuu sii socdo wuxuu gaari doonaa insha allah waxaan rajaynayaa ugu yaraan inuu gaaro 1.3286 sidaa baa u badinayaa lacagta xiga waa Kiwi USD isbuuciyadii maalmahin lasoo dhaafay wuxuu ahaa mid buy ah suuqa waxaa saameeyey Brexit lacagaha dhan ayuu saameeyey run ahaantii insha allah waxaan rajaynayaa wuxuu jibiyey resistance-geena ayuu jibiyey meeshuu jibiyey inuu soo taabto kadibna kor ugu sii baxo oo haddana sii jibiyo trend line-kan isbuucyada maalmaha soo socda insha allah inuu gaaro ugu yaraan inuu gaaro 0.6529 ugu yaraan inuu gaaro meesha baan rajaynayaa waxa ku xigaan ka hadli doono waa dahabka sidiisaba waxa weeyaan waa hoos buu usoo dhacaya bilooyinkii lasoo dhaafay oo dhan kor buu ahaa bilooyinkan soo socda waxaan rajaynayaa inuu ahaado mid soo dhaco insha allah waxaan filayaa inuu soo dhaco inkastoo inta laga soo celiyey dhowr mar laga soo celiyey trend line-ka ka soo dhacay wuxuu ahaan doonaa mid soo dhaco wuxuu jebin doonaa trend line-kan ayuu jebin doonaa kadibna support-kan ayuu jebin doonaa dib ayuu isu daaban doonaa kadibna hoos ayuu isu dhici doonaa laakiin isbuucii hore oo dhan wuxuu ahaa mid consolidate ah mid meel dhexaad ah korna looma qaadin hoosna looma dhigin wuxuu ahaa mid consolidate marka insha allah sidaan dhahay isbuucii lasoo dhaafay wuu soo dhacayaa ilaa hadda waxaan aaminsanahay inuu soo dhici doono lacagta kale aan ka hadli doono waa Nasdaq 100 ama US Tech lacagaha broker inuu magac ku cayaa suuragal ah sidaan dhahay inta ayaan joogno isbuuci hore kor ayuu u baxayaan dhahay wuxuu jibinayaa areadan ayuu jibinayaa wuu jibiyey
wuu soo taabanaya ayaan dhahay, wuu soo taabtay kadibna kor ayuu u baxay ilaa meesha ugu sareysa u gaaray. meesha ugu sareysa ayuu gaaray. hadda wuxuu sameeyey head and shoulder. head and shoulder laakiin aada looma arkayo, waa head and shoulder. marka tan waxay caddeyn u tahay inuu suuqani ahaan doono mid soo dhici doono maalmaha soo socdo ilaa uu gaaro insha allah meesha ugu hooseyso 75.5. marka asxaabta weli waxaan dejinayaa istaraatiijiyadii sida lacag looga sameyn lahaa Nasdaq. asxaabta waxaan ku boorin lahaa qofka doonaya inuu suuqani lacag ka sameeyo waa inuu bartaa sida Nasdaq lagu analyze Nasdaq ama US waxaa brokerdu inuu magac oo u yaqaan ayaa suuragal ah, waa index. marka asxaabta qaaliga waxaan aad iyo aad idinku boorin lahaa inaad baratiin Nasdaq run ahaantii halka daqiiqo wuxuu socdaa inta ay socoto euro USD halka maalin inta bib aad ka samayn lahayd Nasdaq waxaad ka samaynaysaa hal daqiiqo. aad buu u halis badan yahay laakiin aadna wuu u faa'iido badan yahay, laakiin waxaa loo baahan yahay marka hore inaad barataa, waa inaad practice badan aad samaysaa. marka practice badan aad samayso marka waa baranaysaa insha allah. waa inaad barataa suuqa wax dhaqaajiya. asxaabta qaaliga aad baad mahadsantihiin booqashada soo booqateen channelkeena. waa maxamed cali mar kale oo idinkaga tegaya sida iyo nabadiino. assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.